durba hadda waxa la sii shaacinaya xilli ciyaareedka maadaama lagu gali rabo yani xilli ciyaareedku hadda gabagaba yahay xilli ciyaareedka cusub marka uu bilaawan rabo waxa dhacday inta badan kooxuhu ay istijaabiyaan oo ciyaartoygooda cusub ay sii tijaabsadaan oo ciyaaro saaxiibtinimo ay sii ciyaaran inta badan ayaanta Mareykanka la aadayo halka baa lagu soo ciyaaraa marka xilli ciyaareedka soo aadan intaanu bilaaban waxa hadda la sii ogaanayaa kooxaha qaar kulamada ay ciyaarayaan ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka soo aadan ee cusub marka waxa inta badan sida loo sameeyay tahay kooxdu ayaa isla sii qabsanaysa ciyaartooyga cusub ee la keenaya ayaa kooxda la sii qabsanaya marka xilli ciyaareedka cusub inta aanu bilaaban kulamada jir ayaa hadaba la sii ogaanaya Ingiriiska intaanu eegin Real Madrid ayaa iyagu la ogaaday kooxaha ay la ciyaari doonto ciyaaraha saaxiibtinimada intaanu xilli ciyaareedka dambe bilaaban oo kulamada isku diyaarinta waxaana Madrid ka qayb gali doontaa koobka International Champion Cup ay ka qayb gali doonaano marka nimanka kan ee la yiraahdo Los Blancos ka ee Real Madrid ayaa waxa la sheegay inay la ciyaari doonaan ciyaaraha ka intay socdaan kooxaha Manchester United, Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Rome inay la ciyaari doonaan Madrid marka ciyaaraha ka ay saaxiibtinimadu koobka kan maxaa la yiraahdaa International Champion Cup waxay la ciyaarayaan United oo Ingiriisa, Juventus iyo Rome oo iyana Italia wana looga hadda wixii iyagu Juventus ka dhex maray markii Champions League ciyaareen oo dagaal ku dhamaaday kulanka kaayo buuq badan ka dhashay markii iyagu darba jisaal lagu abaalmariyay xilli xun laakiin kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska Premier League ayaa inuu la ogaaday kooxaha xilli ciyaareedka dambe markii aanu bilaaban ay la ciyaari doonaan yani kulmadooda isdiyaarintiina waa la ogaaday kooxaha Ingiriiska Liverpool xilli ciyaareedka dambe intaanu bilaaban kulmada saaxiibtinimo ay ciyaari doonto Liverpool waxay la ciyaari doontaa Borussia Dortmund July 22keeda halka Liverpool Manchester City ay la ciyaari doonto haddana ciyaaraha isku diyaarinta 25 July 3 maalmood kadib weeyaan markay Borussia la ciyaaran marka Liverpool kulmada ku soo aadanay saaxiibtinimada sanadka dambe bilowga isku diyaarinta Liverpool waxay la ciyaaraysaa Dortmund 22 July 6 July waxay la ciyaarayaan kooxda Manchester City ay la ciyaarayaan kadibna 8 July waxay la ciyaarayaan kooxda Manchester United marka Liverpool 3 ciyaarood bay ku soo ciyaarayaan Mareykanka ciyaaraha kaayo laba Manchester bay la ciyaarayaan iyo Borussia Dortmund marka Liverpool shop ayaa horyaalo iyagu hadii ciyaaryahan ay soo gataana waxa weeyaan halkaas ku barowaysan doonaan marka Liverpool labada Manchester ay la ciyaari doonaan maalmo 3 maalmood gudahooda bay la ciyaari doonaan Borussia la ciyaarayaan waxa uu xigtaa Manchester City kadibna waxay la ciyaarayaan Manchester United Manchester City qudheeduna iyana waxay ciyaari doonaan 3 ciyaarood bay ku soo ciyaari doonaan Mareykanka mid waxay la ciyaarayaan Borussia Dortmund mid waxay la ciyaarayaan Liverpool midna waxay la ciyaarayaan kooxda Bayern Munich City July 20keedu waxay la ciyaari doontaa Dortmund 6 July waxay la ciyaari doontaa Liverpool halka 8 July la ciyaari doontaa kooxda Bayern Munich Manchester United iyana kulmadeeda isku diyaarinta xilli ciyaareedka soo aadan 25 July Manchester waxay la ciyaari doontaa kooxda AC Milan dalka Talyaaniga waxay ku ciyaarayaan California ay ku ciyaarayaan marka United 6 July Milan bay la ciyaari doonaan waa kulmada isdiyaarinta xilli ciyaareedka soo aadan waliba July 8keedu waxay Manchester United la ciyaari doontaa kooxda Liverpool waxaana ciyaarta ka dhici doontaa Michigan halka 1 July Manchester United ay la ciyaari doontaa Real Madrid waliba waxa lagu ciyaarayaa Miami marka Manchester Unitedna kulmada sugayo waa AC Milan Liverpool iyo Real Madrid oo ay kulanka ugu dambeeya la ciyaari doonaan Chelsea iyana maxaa sugayay sanadka dambe intaanu horyaalku bilaaban kulmada isdiyaarinta Chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda Sevilla 28 July waxaanay kula ciyaarayaan Warsaw oo Bologna Agosto 1 Chelsea waxay la ciyaari doontaa kooxda Inter Milan waxaanay kula ciyaari doonaan Gothenburg Sweden halka Agosto 4 Chelsea ay la ciyaari doonto kooxda Arsenal waxaanay kula ciyaarayaan France Arena oo Stockholm marka waa kaayo Chelsea kulmada sugayo Sevilla bay la ciyaarayaan Inter bay la ciyaarayaan kadibna Arsenal bay la ciyaarayaan kulankooda ugu dambeeya Arsenal iyanu yaa sugaya Arsenal July 6keedu waxay Arsenal la ciyaari doonaan kooxda Atletico Madrid oo haddaba ay Europa League ku kulmi doonaan waxay ku ciyaarayaan National Stadium Singapore halka 8 July Arsenal ay la ciyaari doonto kooxda Paris Germany aba kuwii balansadeen ya Sheekh Naasir kooxdiisa balansadeen ka war kuwaasna hadaan waxaan Champions League ahayn dadka waa ku cadaabayn ya Champions League waa looga magangala ilmahaas oo BJs waa looga magangala Champions League ha yani dib meeshaas waxa laga yaabaa inaad ku qootayso laakiin Real Francisco iyo
ciyaar saaxiibtinimo dhibkoo laga dhaxlay waa la ogyahay kuwa ka marka Arsenal Atletico ay la ciyaarayaan lugta kulanka koowaad haddana waxa uu xiga Paris German kadibna Chelsea bay la ciyaarayaan kulanka ugu dambeeya 4 Agosto Chelsea la ciyaari doonaan 6 July waxay la ciyaarayaan PSG 6 July waxay 6 July waxay la ciyaarayaan nimanka Atletico Madrid Tottenhamna iyagu waxay la ciyaarayaan Rome kadib waxay la ciyaarayaan Barcelona 28 July Barcelona bay kula ciyaarayaan oo California Tottenham iyo Barcelona halka sidoo kale Tottenham 3 July la ciyaari doonto AC Milan Minneapolis bayna kula ciyaarayaan inta waxay ahaayeen ciyaaraha saaxiibtinimada ee la ciyaari doono hal ciyaareedka cusub intaanu bilaaban sanadka dambe intaanu bilaaban kulamada ka horeeya ee isdiyaarinta wayaan kuwa ka